sababaha aan halkan u joognana waxay tahay dowladda sideedaba sharciga ugu weyn ay heli karto waa aqbalaadda ay ka hesho shacabkeeda. aqbalaadda shacabkeeda ay ka heshana waxay ku salaysan tahay adeegyada ay fuliso. adeegyada ay dowladdu fulisana waxaa fulinaysa heerka dowladeed oo ugu dhow shacabka. macnaheedu marka waxay tahay idinkaa shacabka u dhow, degmooyinka iyo tuulooyinka idin hoos yimaada idinkaga sii dhow. maadaama marka annaga kulligan nala ka rabo si dowladnimada aan u xoojinno inaan kasbanno shacabka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeedna waxaan ku kasban karnaa keliya inay ka dareemaan amnigooda, inay ka dareemaan mustaqbalkooda oo bulsho caafimaad qabta, bulsho aqoon leh la soo saari karo, inay ka dareemaan dhaqaalahooda maalmeed iyo ganacsigooda mustaqbalka. taasaa waxaa lagu cabiri karaa marka dowladda Soomaaliyeed guud oo idinka aad qayb ka tihiin sida ay ula falgalayso shacabkeeda. annaga ka xukuumad federaal ahaan iyo idinka xukuumad dowlad goboleed ahaan waxaana la ka rabaa marka inaan hayno qorshooyin ku qotoma sida loo soo celin lahaa dowladnimada, taasoo aasaaska ugu horeeya uu yahay adeeg noocee ah ayaan sii karnaa bulshada Soomaaliyeed iyo sawir noocee ah ayaan ka bixin karnaa dowladnimada. dadka annaga u adeegna annaga sawirkii ay isku fiirinayeen ama muraayadii isku fiirinayeen ah sida annagu aan u dhaqanno ayaa laba arrin ka turjumaysa. kow, sida dadkaas mustaqbalkooda ay u arkaan Soomaaliyeed, iyo labo, waxa laga aamini karo dowladnimada Soomaaliyeed. fariintaas culus marka aan xambaarsannahay awgeed ayay waxay muhiim tahay annaga inaan aqbalno inaanan waxba qaban karin idinka la-aantiin, idinkana aadan qaban karin wax annaga la-aanteen. si kale haddaan u dhigno, haddii aanan xaqiiqda indhaha ka dadanaynin annaga oo ah dowladda federaalka iyo dadka hadda matalay iyo dowlad goboleedyada kulligoon hal dowladaan nahay, meelna ma gaari karno haddii aanan si wadajir ah waafi ah aanan u shaqayno. dadkii shalayto markii aan magaalada imid na soo dhoweeyey aniga iyo waftigeyga oo kumanaanka ahaa oo isu soo baxay, sababtay isugu soo baxeen waxay tahay inay rajo ka qabaan dowladnimo, hami inay leeyihiin, inay aaminsan yihiin markan isbeddel inuu dhici karo, mustaqbal inuu jiro. abdaciis lafta garaan amir xasan khayre umaysa dadkaas umaanay soo baxin, dowladnimo Soomaaliyeed ay u soo baxeen, rabitaan Soomaalinimo, dareen ay dareemayaan armaa mustaqbalkiinu isbeddelaa. khatarta ugu badan marka oon kala kulmi karno hawshaas iyada waxay tahay haddii mar kale dadkaas aan qalbigooda jebin oo mar kale ay dareemaan rajada way lunta. sidaas daraaddeed ayaa xil wuxuu naga saaran yahay kulligan annagu qof walboo nagamida dulqaalka ugu badan inuu muujiyo, oo qof walba qofka ku dhegan uu la shaqeeyo, qof walba qofka uu la joogo uu dulqaato, qof walba qofka dhinaciisa uu toosiyo. qof wada wanaagsan ama qof wada xun ma jiro, qof aan loo baahnayna ma jiro. waxaan soo maray wasaaradihii nasaaka uu madaxweynuhu soo tusiyey, waxaa ka muuqata halkan nidaam dowladnimo oo bilaabmayo oo curdun ah sida Keenaba uu yahay, laakiin horumar baa ka muuqda marka loo barbar dhigo markii ugu dambeysay halkan. waa ugu mahad celinayaa madaxweynihiina, waxaan aaminsanahay shaqo fiican inuu hayo. waxaa kaloo aaminsanahay inuu yahay buundadii looga gudbi lahaa khilaafaadka iyo isqabqabsiga. aan aaminsanahay inuu yahay qof hadafkiisa ku salaysan yahay dadka Soomaaliyeed in la isu keeno. taasna waxay ila tahay inuu ka dhaxlay khibradda dheer uu leeyahay. waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay in dhalinyaro ay aad ugu badan tahay golaha wasiirada koonfur galbeed. waa mustaqbal aad u fiican, waa iftiin, waa rajo, waa dadkaan rabna inay nagala wareegaan awoodda iyo xukunka mustaqbalka iyagoo ay dalkan daadihiyaan. maalmaha markaan idinla jooga halkan ma u imaan inaan annagu wax idiin sheegno, waxaan nimid inaan idinka idin dhegaysano wixii tale iyo tusaale ah
iyo inaan la noqonno qoraal buuxa ama tala buuxda oo ah waxa ay tahay inaan idinkala shaqayno markaan ka laabanno halkan oon ku laabanno magaalo madaxda